bismillaahi raxmaani raxiim nabad daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeeni falanqaynta siyaasadda maanta iyo qodobadii ugu dambeeyay. Qodobada aynu maanta barnaamijkeena kusoo qaadan doono daawadayaal waxaa kamid ah qorshe siyaasadeed oo halis ku ah Somaliland oo lagu dhex karkarinayo madaxtooyada dalka Djibouti. xildhibaanka ka tirsan golaha wakiilada Somaliland xildhibaan Maxamed Abiib oo maalinka berri ah kusii jeeda gobolkii laga soo doortay ee Awdal. qodobada iyo qodobo kale ayaynu kusoo qaadan doonaa barnaamijkeena maanta. Kusoo dhawaada daawadayaal. haddii aynu gudagalno qodobka ugu horeeya barnaamijkeena maanta daawadayaal, sida aynu wada ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyay xiriirka u dhexeeya Somaliland iyo Djibouti ayaa waxa uu ahaa mid aad u cakiran. xiriirka u dhexeeya madaxweyne Geele iyo madaxweyne Biixi ayaa waxa uu ahaa muddooyinkii ugu dambeeyay mid aad madmadow badan u soo kala dhex galay, kaas oo lagu sababaynayo xiriirkii ama heshiiskii iskaashi ee dhex maray dowladda Itoobiya iyo Somaliland. heshiiskan iskaashi ee u dhexeeya labada dowladood ayaa waxa uu dhignaa in dowladda Itoobiya ay ka codsatay Somaliland inay siiso 20 kiiloomitir oo dhinaca badda ah oo ay rabto inay ka samaysato saldhig military, halka beddelkeeda ay Somaliland siin doonto aqoonsi. haddaba heshiiskan siyaasadeed ayaa waxa uu cuntam waayay madaxweynaha dalka Djibouti, kaas oo u arkay inuu halis ku yahay dalkiisa. haddaba maxaa uu yahay qorshahan siyaasadeed ee daawadayaal lagu dhex karinayo madaxtooyada dalka Djibouti? qorshahan ayaa waxa uu yahay daawadayaal waxaa harta hogaaminaya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo kooxo kale oo abaabulan oo kasoo kici timay oo ay soo direen garaadada Laascaanood iyo kooxo kale oo qurbo jooga oo ka yimid dalka dibadiisa, kuwaas oo u ololeeya Awdal State. haddaba kooxan ayaa waxa ay rabaan inay ka fuliyaan ama ku dumiyaan magaalada Boorama isla qorshihii lagu dumiyay ka hor dagaalka magaalada Laascaanood. haddaba qorshahani muxuu ahaa? qorshahani waxa uu ahaa marka hore in magaalada laga fuliyo assassination iyada oo la beegsanayo dadkeeda aqoonta leh iyo dadkeeda waxgaradka iyo dadkeeda dowladda u shaqeeya, kadib si la iskaga horkeeno shacabka iyo dowladdu iyo ciidanku. kadib marka ay xabadeeyaan shacabka ama dadweynaha, kadib dadweynuhu ay ka hor yimaadaan dowladooda. waa isla qorshihii magaalada Laascaanood laga fuliyay, kaas oo ay ka fuliyeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland. haddaba isla qorshihii ayaa ay abaabulayaan in ay ka furiyaan magaalada Boorama. qodobka xiga aynu soo qaadan doono barnaamijkeena ayaa waxaa kamid ah maanta daawadayaal, xildhibaanka ka tirsan golaha wakiilada Somaliland xildhibaan Maxamed Abiib ayaa waxa uu kusii jeedaa magaaladii uu ka soo baxay ee magaalada Boorama. haddaba qoraal uu bartiisa Facebook kusoo daabacay ayaa waxa uu xildhibaanku ku sheegay: maalinta Sabtida sidii aan hore idinku iclaamiyay waxaan socdaal la tashi ah ugu tagayaa bulshadii isoo dooratay ee reer Awdal. waxaanan soo dhaweynaynaa baaqyada isa soo taraya ee lagaga soo horjeedo gafkii la igula kacay iyo dacwadii sharci darrada ahayd ee loo gudbiyay shirgudoonka wakiilada. ciidanka booliska waxaan ugu baaqayaa inay sida ugu habboon u sugaan amniga dadweynaha go'aansaday inay isoo dhaweeyaan, aniguna aanu aqbalay iyo amnigayga labadaba. xukuumaddan waxaan ugu baaqayaa in caqligu shaqeeyo oo aanay samayn kicin dadweyne. waxaan mar labaad ku celinayaa in aanay imatalin qof ama koox walba oo wadata calan aan ahayn ka Somaliland, maadaama aynu nahay dal madax bannaan. inkasta oo la iga doortay gobolka Awdal, waxaan xildhibaan u ahay guud ahaan shacbi weynaha Jamhuuriyadda Somaliland. waxaan u dhaartay ilaalinta sharciga iyo dastuurka dalka, mana ogolo in lagu xadgudbo, la baalmaro ama la jabiyo sharciga. sidaas la mid ah ma ogoli in la waxyeeleeyo ama waxyeelo loo geysto lana mashquuliyo ganacsiyada iyo shaqooyinka ka soo horjeeda dadweynaha Boorama. waxaan guud ahaan shacbi weynaha Jamhuuriyadda Somaliland u rajaynayaa barwaaqo iyo amni buuxa, ayuu kusoo gabagabeeyay hadalkiisa daawadayaal. intaynu barnaamijkeena xiga ku kulmi doono daawadayaal, sidaas iyo nabadgelyo.